ogaada
ardaydii siin aragteen oo wajiyaalku qurux badan leh dhakhaatiir in isku jaraan garsooreyaal in isku jaraan macallimiin in isku jaraan dhammaantiyo iyo maamulayaal in isku jaraan xafladda qayb galay eedyada siinka kumaha nagaana tan kale waa xafladii afaraad oo jaamacadda koonfurta soomaaliya qabsato oo qalin bedelasho inkastoo qalin jabin eraana inkastoo terminationkaasay waayadun dambe xoogaha jibintaasay isu qabsadii qalin bedelasho eraana mawaalay mayba eedanka faraxsanaa xafladan oo una iidaha hadaban qaabiyaani oo geekiisin argahadan si qurfad badan leh waa may galay waqti iyo may balena xambaliyo waa geega waa maalintii waay waa maalin farxadeed waa maalintii sinkala haytan maalintii adduunku waay waa geegantiisi xustaan waay waa maalin sharaf siinga waa maalin qiimo siinga waa waali unu siinga kalsoonna oo meel raaisan sii doono marta oo macnaa siinka markaa tanaqdaan waysan barantan intii dadka shaqeeyo koreertino oo kalsoonu siin qabna xaqo adaas lena kole maadaama waqtina haaya in badan meel raais intaasaan geebgeeya xafladina niin furanto insha Allah taala hadawada dhamaan ka soo qayb galayaasha mar labaad mar saddexaad eedeeda kama santiin xaqayb galay xafladii maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada bahda saxaafadda waalidiinta iyo dhammaan ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda koonfurta Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin farxadeed waxaan rabaa wax yar inaan ka dhaho historiga ama taariikhda jaamacadda ay soo martay xilligii la aasaasay sidaan wada ognahay fikirka lagu aasaasay jaamacadda koonfurta Soomaaliya waxa uu soo bilowday 2002 kadib markii ay isu tageen koox aqoon-yahano oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed kuwaasi oo ku nool dalka Mareykanka waxaan hogaaminayay kooxdaas Professor Maxamed Cabdi Kuusow Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar Marwo Baarliin Xasan Cali Haykal Keynadiid Sarmaan Injineer Axmed Qaasim iyo kuwa kale oo badan bishii May 5 ayaa si rasmi ah loogu daafuray jaamacadda Hotel Eden ee magaalada Baydhabo xarunta jaamacadda inay noqoto waxaana goobjoog ka ahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka TFG-da wasiirkii waxbarashada xilligaas oo ahaa Salim Mario Ibrow iyo mas'uuliyiin kale sababaha loo doortay in xarunta jaamacadda laga dhigo magaalada Baydhabo waxaa ka mid ahaa waxa loo arkay inay tahay magaalo ganacsi lehna wax soo saar dhinaca xoolaha iyo beeraha waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan iyada oo bulsho ahaan ay ku nool yihiin dad leh dhaqamo kala duwan juqraafi ahaanna waxay xuduud la leedahay gobollo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay jaamacadda waxaa ka mid ah in jiilka Soomaaliyeed ay helaan aqoon leh tayo sare iyada oo la eegaynin bulsho ahaan gobolka ay ka soo jeedaan sidaa darteed jaamacadda waxaa ka go'an inay tayayso ardadeeda oo dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda aragtida fog ee jaamacadda in ay keento isbedel bulsho sarana u qaado aqoonta iyo tababarada asaasiga ah ee ka jawaabaya baahiyaha gaarka ah iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale ee gobolka tirada guud ee ka qalin jibisay jaamacadda heerka koowaad ee bachelor degree-ga waxa ay gaarayaan ilaa 318 oo ka kala baxay 4 kuliyadood oo kala ah kuliyadda health science-ka economics and management education and sharia and law halka tiro ka badan 500 oo arday ay dhameysteen shahaadada loo yaqaano diblomaha oo 2 sano ah barnaamijyada ee u hirgeliyay jaamacadda waxaa ka mid ah kuliyadaha cusub ama departmentyada cusub jaamacadda ay soo kordhisay sanadkan waxaa ka mid ah Faculty of Social Science and Development waxaa hoos imaanaya Public Administration waxaa hoos imaanaya Social Work waxaa hoos imaanaya Agricultural Studies and Community Development waxaa kaloo jaamacadda ay furtay oo halkan aan uga faa'iideysanay inaan ku darno daafurka macadka luqadaha iyo suugaanta
ama Institute of Language and Literature. sidoo kale jaamacaddu waxa ay soo kordhisay ama ay qorsheynaysaa inay bilowdo hal sano oo koorso ah 1 year course of Alif Mai teaching program. sidaa ognahay waxaa dhammaaday oo gabagaba ah fartii Alif Maiga ee loogu talagalay si rasmi ah in loo daafuro bisha June 5 ama May dhamaadkeeda. sidaa darteed jaamacaddu waxay diyaarisay si ay u soo saarto macallimiintii dhigi lahayd koorsada maaragtay Alif Maiga ah si iskuulaadka oo dhan loogu dhigo Koonfur Galbeed. waxaan diyaarinay hal sano oo koorso ah oo loogu talagalay tababaridda macallimiinta si loo soo saaro jiilkii dhigi lahaa ama dadkii wax bari lahaay koorsooyinkaas Alif Maiga. waxaa kaloo aan soo kordhinay institute oo loogu talagalay researchka iyo tababarada oo loogu talagalay guud ahaan Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya. institute-kana waxaa loo bixiyay Hakaba Research and Training Center. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda ka qalin jebinaysa jaamacadda Koonfurta Soomaaliya anigoo ku hadlaya boardka magaciisa. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkii dheeraa aad samayseen. maantana waxaa u fadhinaa inaad maaragtay shahaadadii iyo abaalmarintii laydin siiyo. waa ku mahadsantihiin sida aad u doorateen jaamacadda Koonfurta Soomaaliya. annagana waxaa naga go'an inaan waxbarasho tayo leh inaan idin siino si aan u xaqiijino arday tayo leh oo wax baratay si deegaankooda iyo dadkooda wax u taraan. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waalidiinta, macallimiinta iyo maamulka jaamacadda oo u dhabar adeegay oo garab istaag u muujiyay dhammaan ardaydan quruxda badan ee maanta halkan ka qalin jebinaysa. intii waxbarashadooda ay ku jireenna mar walba garab istaag siiyey. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka gaadiidka oo maanta na siiyey inaan fursad u helno goobtan quruxda badan oo ah goobtii ugu horeysay oo aan nasiib u yeelanay inaan halkan ku daafurno ama aan ka dhigno goob lagu daafuray cilmi iyo aqoon. waxaan leeyahay wasiir waa mahadsan tahay garab istaagaaga iyo wada shaqayntaada. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan wasiirada maaragtay oo u taagan mar walba inay ka shaqeeyaan horumarinta iyo danaha Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya. sidaa uga soo qayb gasheenna mas'uuliyiinta sare aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. أما بعد dhammaan dadka sharafta leh ee u qayb galay munaasabadan qiimaha badan oo ka horeeyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed lafta gareen dhammaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka horeeyay wasiirka waxbarashada Ustaad Cabdiraxmaan Malaaq Kulkuliyow dhammaan madaxda gobolka iyo degmada dhammaan bahda waxbarashada madaxda jaamacadaha iyo maamulada iskuulada dhammaan guddoonka iyo maamulka jaamacadda Koonfurta Soomaaliya iyo macallimiinta boorka sare dhammaan bulshada qaybka leh sharafta badan dhammaan ardayda qalin jebiyayta oo ogeeyka munaasabadan qiimaha badan qayb qaadayta waalidiinta guud ahaan waliba sinka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. salaan kadib runtii geeka oo ku beegan taariikhda 15 bil Febraayo 2020 waliba waa maalin eednin weyn waa maalin farxadeed waa maalin runtii marihii iyo halgankii dheeraa oo muddada dheer soo biyaani uu fududayna oo runtii natiijadu dirni waa maalin uu farxad la qaybsadayna intuu aqoon-yahane oo tiradii 100 kor dhaafay geeka meelaha qaran bedeladayta runtii waliba nigata farxad la koobo korno runtii waliba nigata guul la taabado koro maadaama jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo hay'ad jaamacadda guureeyay Koonfur Galbeed Soomaaliya ku soo bi geeka iyo dawlad degayta munaasabadii afraad ee qalin bedelashada oo runtii ka qalin bedeladayaan arday kor dhaafay 100 iyo 3 arday runtii
waliba meelun ka hambaliyay anoo ka hadalow magaca kiikay iyo kan jaamacadda koonfurta Soomaaliya hambaliye iyo bogaadin iyo waliba daray dhammaan ardayda qalinjibiyayta oo runtii iska jaran ilaa ay dhowr qaybood oo hadda meelin ka sheegay oo in tiradanka badan kulliyadda caafimaadka ku bixeen qaybaha public health-ka qaybaha nurses-ka oo kala qaybta maamulka iyo maareynta business administration saas oo kala qaybta sharciga looga iyo qaybta kale dambeeyay oo macallimiin oo ku bixeen kulliyadda waxbarashada runtii dhamaantiyo farxadda يعني يلا قيب صدق كيكه مركا ما هنجاي دمان قف كستو هأجيبي دعوة إياه يرتاح كيك المغير إنه أنا كل قريب كلام مناسبات نقالي جاء فرحة بدن رنتي دي هذا كمان دعانا ما يسكر كمان دعانا جروب كيك دمان هذا جاي أو برضو كولتيم جاء إياه سكر سوكر ما دعانا ما نحن كفر قلب الصومالية أو كفري مدحويني عبد العزيز حسن محمد لفت كرين أو رنتي هنو أجيبي أقولاني ورنتو أرجع قفليه هنبهي إن شاء الله ولي بجينا بإذن الله تعالى إني وصل قبلهم كفر قلب الصومالية والبدن كبدلتهم بإذن الله مستقبل كده إن شاء الله كل وقتي أو أيضا كون درادي يريدوا كل هذا والبدن إني نسيب المجالي ما يسكع سكر سكارة كمان نجاي ترجيها آسي أو تبدأ يعني آسي جامعة كفر الصومالية وبروفيسور عبد محمد كوسو الهوري بروفيسور محمد حاجي مختار يدمان بروفيسور في كلا هجرب سرناين مدود در وقتش كبير ما يكلم ميلون جيك ما يبغى كتوع عليه مرحوم كي والبدن جامعاتهم أساسية شكلها هاي وانا قدام أنا ذيك مدود تمكسر لنا كشقي مرحوم محمد علي كلاي رحمه الله تعالى إن شاء الله ولي بجنا الله سبحانه وتعالى يدوس كعفي الله سبحانه وتعالى ما بكره جنيني إن شاء الله ما يبغى نحرسه كل دمان مرتشرفتي يعني مسؤوليته مرة بعد ولي بالهاي دي دم ماسنتين هذا الكلام له جوا جويه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين معها ما سنتين مرتي شرف كما يشوفوا يمد مدحوينها وزير ذا ururada bulshada macallimiinta ardayda bahda saxaafada dhalinyarada kulli waa mahadsantihiin maanta waxaan isugu nimid meeshaan inay tahay maalin aad u qiimo badan qalin jabina ka dhacayso ani qalin jabina dhaha qalin bedelasho xoogaa waa ugu adag tahay dadkii hore ahaani marka qalin jabintan waxay tilmaamaysaa guul la gaari achievement la sameeyay dada target kay samaysteen wuxuu ahaa waxbarasho inay galaan 4 sano 2 sano waxay ku qaadatay inay dhibtoodaan finally ugu dambeyntiina inay ka gaaraan natiijo maanta natiijadii la gaaray laakiin waxaan u sheegaa inkastoo hambalyo aan leeyahay oo aan ku riyaaqsanahay horumarka ay sameeyeen it's the beginning of another day qalin jabintii waa dhamaatay waa la qalin jabiyay it's not the end of everything wixii meeshii kuma dhamaanin waxbarashada waa sii socotaa waxa laga rabaa maxaa contribution ka geysan kartaa bulshada maxaa ku taageeri kartaa bulshada maxaa contribution u sameyn kartaa mise waxbarashadii waxa baratay meel la fadhiisanay that's not the way inkastoo lagu riyaaqsan yahay horumarka la sameeyay inkastoo qalin jabinta ay aad u fiican tahay haddana it's not a time oo gadaal fiirsid aad dhahdid wallahi أنا وأزمهدي أنا وأقلين جبي I'm done I'm set مايا chapter كلا كوب بلابناي chapter كلا وحكوب بلابناي هل جنك هبدا له بلودكو challenge نلاش هبدا له بلوده هذا هوري وشقين جرتي أو عادي هاد أو degree قاعدتي أما diploma قاعدتي وحلاقي ربع double إناس ميسد شغلة مرة روس مين جرتي سببته وحدة هاي أقونتي تيادي وحي لوجلي input كي contribution كذا إن لقى أركواي هدي لقى أركوايو waxbarashadii waxay taraysa mar saameyn ma yeelanayso marka takalo sheegay waxa waaye maanta waxa lagu dhawaaq gudoomiyaha uu ku dhawaaqay in iskool la furaayo معهد لغتها قابلسن إيو سوغانتا صوبت كانت وحي باهي لو قبو حق لغتها أو بربليم كجري وحنا رجينا تلابو وين إنا كي جيسانو حق لغتها إيو سوغانتا انتبه سوغانتا وحا عمالي سعدد بدن
inay cilmiga suugaanta ay yaraysanayaan laakiin asalka iyo aasaaska cilmiga wuxuu ka yimaadaa suugaanta iyo dhaqanka ta kale waxay tahay waxaa lagu dhawaaqay in la furaayo Hakaba Research and Training Center macnihiisu wax weyn waay adduunyada waxay ku kala tagtay research meel aan problemkii jiray aanan la cayimin oo aan la sheegin oo la baarin oo xal loo samaynin waxba lagama gaari karo marka research centerkaas Hakaba marka la leeyahay it signifies wax weyn sababtu waxay tahay waxaan leenahay hadda waxaan diyaar u nahay ina cilmi baaris annaka sameeyno oo annaka aan isku sameeyno annakoo ajaanib iyo waxba aan u baahanin taas waxay tilmaamaysaa dadkii dhaqanka yaqaanay dadkii hidaha iyo luqada dadkii yaqaanay inay cilmi baaris ku sameeyaan oo laga kaaftoomo ajaanibkii loo turjumi jiray oo nusna sax qaadan jiray nusna qalad qaadan jiray markay baaritaan sameynayaan gaar ahaan marka laga hadlaayo arrimaha bulshada quseeyo hadalka kuma sii dheeraanayo ani waxaan mahad u celinayaa dadkii soo dhaweeyay waxaan mahad u celinayaa inta magaalada markay igu aragto i qiimeyso oo si fiican ii salaanto oo ku riyaaqdo imaatinkeyga waxaa kaloo sii rajaynayaa bal waxbarashadii la sheegayay problem iyo wax inuu ka jiro waxaan idiin sheegayaa dad badan oo South West ka tirsan oo professor ah oo kulli PhD holders ah in ay jidka soo hayaan ay isoo daba socdaan ani waxaan rajaynayaa taasna inay isbedel weyn ka keeni doonto kuusooga hadda la sheegay jidka ku soo jiriya waa soo socdaa dad kale oo badana dhiman I don't want to name names laakiin liiska waa dheer yahay kullina oo arki doontaan inay yimaadaan ee inta casharag iyo wax ka bixiyaan ee wax ka dhigaan ta kaleeto waxaan idin leeyahay ani waa imid ani waa soo gaaray I'm here to stay I'm with you waa idin la jiraa waa imid waxaana leenahay marka la fiiriyo dadka doctorayaasha ah oo runta ah oo PhD holders ah ama aqoonyahanka ah tirada ugu badan South West network PhD aan leenahay jaamacad kasta oo Soomaaliya ku taalo in aan ka badannahay inta PhD network PhD holders ah haysan annaka haddii dhinaca researchka la aado area scope aan researchka ka sameeyno waa ka scope badannahay waa ka scope weynnahay jaamacadaha kale oo Soomaaliya ku yaala iyo gobolada kale oo Soomaaliya ku yaala ama maamulada kale oo Soomaaliya ku yaala and I think you should be proud of this ina ku faantaan waay network PhD ga aan leenahay waa ka badan yahay jaamacadaha kale marka loo fiiriyo researchka aan sameeyno scope iyo area aan cilmi baarista ka sameeyno waa ka fidsan tahay jaamacadaha kaleeto dadka ka sameeyo iyo PhD yada ay leeyihiin oo ka sameeyo hadalkayga intaas aan ku soo gabagabeynaya inta kale waxa idin leeyahay fasalka isu keenkeena let's meet in the classroom let's meet in the lecture hall toona may faday codsi toona dardaaran saddexdaas qodoba jeelaynaana ku hadalo markan ka horreeyay meen mahadnaqaaya bahda waxbarashada qiimaha badan gaar ahaan jaamacadda koonfurta Soomaaliya jaamacadda koonfurta Soomaaliya afarta dufcadood la sheego dufcadii ka horreeyay meeha ku batay shamano oo manana weeradan ahaa haddana la dhaqtar oo maanta la kafaano kor maadiya ku deerta hoolay iyo qobadan email iyo ku bilaawen runtii eedayadan kama hadnaqa dadka hadda galan jibiyaan may baadisiin lana mabruuk alfa mabruuk hormar may siin ku rajayay oo guule oo isan hangoy tan dalkin iyo dadkin madda kale markii aan mahadnaqa intuu ku baha may laha dardaaran may siin la dardaaramay shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan bahda walbarashada may ba laf dhabaran eta bulshada Soomaaliyeed ama bulsho kasta meelka nool iyo laf dhabaran may ba codsadaan haddii una dhaqanka inuu ka dadaalaan ilaalinta diinta ilaa lanka walan qorana meelaha koro diintiis ma yaga ninka dadaalan falaan dhisida dawladnimada ama ilaalinta dawladnimada inuu ka dadaalan kan homo meelaha intii suruma wal munaasib ayaan sheegana odayga dhaqanka inay jooga korna dadka inay jooga la falo dadka wala ku baradiyo dadka wala baradi may buu muhiimad gooni ah ku saaranta
runtii xafladan quruxda badan imeelo laka dhaki meesku koyna dadaalaka koyti dowladnimaka koyti dowladnimadaasna ciyaarmaka koyna mar badan fikrad badan dad meel waayala oo dhalga meelka aamin oo aan dulqaadadi oo fadhaadi hamiin maalan haanjeedi aqoon walaagi oo lahaayeen cilmi walaagi lahaayeen walaagi maal ay oo lahaayeen iniska jeegan ku koyti marka may la faday odayaalkii marka gaboween waa siyeetun jara saqaalun jara aneen dadkan yar yar leey tilmaame aneen yaargo haytan maanta xaaladayda saadna ka sugunta may la raay sadar qoran su'aal ma ku dhan may siin ku fadaane jiilba kala yaha dhahal siye ciyaar ma dowladnimada ciyaar ma leh ma fadhigan fayl dowladnimada koyti wal barashada shalay shantoon jaamacad dufada ku baasi maanta ma ku bahaytay boqoliyo naysada qof sheego haytan sidaas miisku koyna dadka shacabka meelaha ka aruuri ma ku koyna may ka koytay in dowladnimada la argi in nabadgeliyada la argi in wadanka xasilooni ku jarto iyo wax barashada la kadeeri marka may siin kala dardaaramay inaysan arna madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo odayaashiisa dhaqankan ku yaraana san arna wadanka may la siin ku fadeey inaysan hormariyaan inaysan hamiin maalan hanjeedaan wal barashadana mayba nanin sheegay inay markii dheerabta la gala oo la ka dhalado in markii la dhamado inta dhahay toba in wal barashada marban dhamaadana insan arna maanta balan jibiidana meel afadin sida professorka oo horeey sheegay may buuha geedigi hadda bilaawday geeda badan la siin ku baahanyi hooleysan qordaasana aqoontii ay ilmisheeni lahaatan la siin ku baahanyi may balatina caafimaad siin ka jare dadka hoole ama caafimaad la siin saaray bani aadamkaas hoolis haddii aad aqoonin lahayna runtii dhibaato ku kooyaas haddii la gaari injineernimadii iyo guriga dhisideedana aqoon faydadan in lahayna buurto bari haddii ha ka irdume marka aqoontaysan la siin bari ini horan ziyaadan siin kala dardaar intaas waay may codsi oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo tay fadhiyo mudane madaxweyne jaamacadaha may ba ka jaraana guriyaal ambijar abangayna meelo kale munaasibin hayna may ba koo codsadeey in la siiyo jaamacadaha guriyaal la siiyo khaasatan jaamacadda koonfur galbeed oo aan ero koro aadi warbarashada reer koonfur galbeed marka ayowna la koolkoolisa noofadaasa ayow dhaqaali noofadaasa ayow ixtiraama noofadaasa mayba koo codsaday adii golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda guriyeenta iniyo guri siyaan dhul banaan siyaan haddii dhisado koraan dhisadaan haddii dhiso koraana qaab dowladeed diinka kaalmayo codsigana intaas ah ka gabagabaaye هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي مدحوينها كونفر قلبيت صوماليا حلبانديس وسيرديس مامور جاي كو حيغان شي كل سلامتي والدينتا أرديدا أقرب سوري سلامتي سلام بقولتي ما فرتا كلين سلامتي أرديدا بيلو فديدا بقولتي ما فرتا كسلامي يوم كلين سلامتي سلام بعدي كنت ما بجيدي والير أو إري أو كوكو أساسين بدراي ما يكون لها والبرشة أبتيو والبرشة لانو مبتو لان كبير شيء والبرشة نقول مبتو كفلني لان كبير والبرشة ميل أفتين يرون ما يوم ما جرته والبرشة يوم يتي معك أي فين بس يوم يتي مع والبرشة أي فين والكباسة والبيكين تراس ملمكير دياس هذه إلى يوم فلاس لكن والبرشة يك إلى ياس يك إلى ياس مسكنتها فرش كويلاس والوين بوا ديو بوا فتكين فوضى هذاس هي أنت هتيار والبون بردا هي كلا ما بوا والبرشة مالكو وين هذا مالكو دوا ولا وين هذا وريلين وين هذا مسكحلها كفراس أنت هذه يرتب
maskaxda dhimanta mar baad sanadkiinka darsantoona maskaxa warakiin koraas mayka guubaabiyey bulshada koonfur galbeed Soomaaliya intii hooyooyinka iyo aabayaalka iyo awlaada isla seedaan iskoolada lankii iskoolada dhamaasoo dugsiga ku baan jaamacada wada seedaan walba ay la isreebay haddii aanay tahay walbarashada korlangaada aqlagaan iyo aqoontaan hiri maayaan korayn isla hiri maayaan una dhantan iska hiri oo hal meela ku jeedo nagdaan haddii kalka faraar wiilshay dhii jareelay may kaloo aanay tahay siin sheegay maadaama walbarashada korhalan dhibkadhana lahaa laakiin walbarado oo haddana inta isku geli inta nyaanyinka karyow gala hooyooyinkaan sheegoay yo may lamid ataa la oonay tahay hundiri habsaami yaa lamid ataa marka ani qof oo may ahaa waayeel hooye aboy aanata arinyagan awey maan darooga iskoolkaas dhigraan jaamacadaas dhigraan awoodiyo waa aha yaa inta ka jara marka may la faday aan iidaytan ilaahay sin darajaay na darajayteen may salaameeyha jaamacadda koonfur galbeed maamul ee madaxdiye nimankii America ku aas-aasi kulisho salaamin mahadnaqay yo dhan mahad yaan haay ilaahay mahadle mahadan haay ilaahay mahadle mahadan haay ko ilaahay mahadle intii oonay tahay macallimiin ay tahay walhana barti eedan ka mahadnaqay macallimiintan oo jaamacadda koonfur galbeed eedan ka mahadnaqay sifaylahanin awlaaliyan sifayla walhanin bareen hanin dhabar adeegen hanin la dardaarmi jirin geek salaam boqoltumi afarta ka salaamin waana eedan ka mahadnaqay tiidiya kala maybaa hooyooyin buuyin ciyaalka yaryarka inay wala sheegan yoo la faday wala idilaa ku dhisiya iskoolada la kooye wala oonay tahay xaafadda la ku dhisiya iskoolada la kooye ciyaalka hal tarbiyeeyo hal sheego walbarashada intii faylata ciyaalka halkana naway wasallallahu baar intaasana siin ka dhawaay golihiisa wasiirada xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxa iyo maamulka jaamacadda koonfurta Soomaaliya oday dhaqameedyada dowlad goboleedka koonfur galbeed marti sharafta shalduun oo qayb galay xafladda iyo ardayda ku qalin jibiyahayta jaamacadda koonfurta Soomaaliya iyo han ku qalin jibiyaan oo ay geek marqaato kula fadayaan saaxiibadii oo qalin jibiyaan gudahaan maybak salaamayha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam mayba eed farxad inka ah geekeedana ku qayb gala jaamacadda koonfurta Soomaaliya qalin jibintii isla markaasna uu qalin jibiyahayaan ilaa iyo 103 arday anaa ku qayb gala farxad goonay inta inana ku qayb gala madaxweynahay sharaftalle mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo geeka uu qayb galay xafladda muhiimadda xafladda la qayb galay masa lankooyo mayba ka muhiimsana in oo marqaato ku nagada shakhsiyaadka waqtiga dheer ha geli juhdiga ha geli isla markaasna la hambalyayo waana la do'ay muhiimadan taaso mayba سينك همبل يا أنا أردايدا بقول دافع قفة قلم جبنتين إيو قلم بدل الشدين terminology استعمالهم بس سينك همبل يا أنا ما يندر أمانة إنجا كيسون كهرب دونا ملي سينجا كردان إذا سيوا دوتهم والبرشة إلا إيو اسمه بدرسان حارنك قدام بي دكتور ريد كي إيو PhD holder كي أنتي بدرسان أنتي وده دوتهم فلات البدن سينك بدر دار ميلون ولونا ما يبغى سينهاله دون نجرب إيه إن سيننا بيبقليال شخصيا كجولان وزير الأهان دولة جولات كونفر قلبات أورجاميا ومدحوين عبدالعزيز حسن محمد لفت جران ما يبغى ينقطع فرحات بومه وجامعة كونفرتا جامعة يومين كويا ديننا الفرقان ميلون إيه بورد دايركتور كقدوميا شيء عبد الفتاح إنجنير كنتو هذا راي إن maybe نقول هاي لكن أنا ما جامعة يقولك أتا جامعة دي أنا
لماذا كون إتوميل لماذا أنا كقاعد ذي nursing diploma nursing associate جاي كمان بفرحان أنت وزير كعدالة إن كوميتاي جامعة دان أرديبي كوبتي إسلام الكاس ما يلقيها إن كوارك أبنا لكن ما يدتكون فرابة لمرتيو أول ذهبين عدايس محمد حسن لفت كرام إن كوميدي عدايه إن هو capacity building and training institute كو جامعة الله هذا جرتي إن أنا معلم أو بروفيسور اللغة الإنجليزية اللي كاو لتر اللي راو معلم هذا جرني مركز جامعة عن جامعة جول له أنا إيه قدر يوم من التوب باي ذا واي ما دام ما برشلونة بودهان أنا دي رجليا لكن جامعة فرفرت وجامعة دايو إن هو بقول جيب كلمات دائما حتى لما نبجيني أنا كفر حسنا من الرجعها أساسياشة وجامعة أساسا إنه دريمة دونا مرايو بالله إنه الفيل هاين ما دام جيك والمرغاتوك وأنا وني مدحونا أنا أنتم أرداء يوم البلد جبيين جامعة أنا هجاوب يوم هذاك ضد إن أهم بيوم مدحونا يتيم شيء وبلاش وزيرة الدكان هذا ضد تنهم بيوم بيبقى هنجاوب جبيه هذاك ما يقبل نهجيك مدحونا هو يدير رجليه والبرشة ديرد السارة وتطورها برا اللي يرى جيك حلقة عنه هو حلقة دور الهواء والغيب قالها هاي حفلة غير جميلة يقبل مركب ما فضلنا نهائي إنه ديرجلين تاسم ده هو التأسيس والنصيحة هاي إنه نقول أبا إن إسلام كاسنا ونحكم وبنا إن كي جيك والبرشة همين السياحة هنا تاو سؤال هذا إن حلقة وزير كسرة أنك يرى قاسم واحدي إيوه dadka warqado jijeeyo wasiirin jijeeyo in la qaado doono qabiil la qaado doono la koorbusan la koona shahaado ku turjumaa sameeyay sulun weydiyahay marka dadka dhamayna gado doonana dad an rooro in walbarada oo ku qayb galaan jaamacado insha Allah hadalka inta gabagabeeye mayla marna hada mas'aladan ma hambalyeeyay ardayda oo qaarna asxaabana qaarna deegaan wadaagana qaarna oo dadka maamulaan ku mid yihiin yan hambalyeeye mayna lahaa ilaahay ilmihiisa barateen ku dhaka kooluna anfacaasan dawladana ka anfacaasan shacabkana ka anfacaasan naftiinna ka anfacaasan ehelada iyo qaraabada isin budala taagno waqtigaasan geliyana ka anfacaasan ilaahay ku waalidiin tuulaysan barateen waana ay lagu gadaalinay tumaylita arday oo ku bati faculty of sharia law anoo ka hadalaa magaca cadaaladda bahda cadaaladda iyo garsoorka oo madaxweyne Abdicasiis uu aaminay in magacaaway anoo kuma hadlayo madaxweynaha may lahaa mayba balawtana mayba hortii yaale geeka in garsoorkii la tayayahay la tayayahay isla markaas la qaadahay dadka shahaadooyin soo iyo khibrad leh la qaadahay mayna si kambalay in mustaqbalka dhow shaqooyinku uu hadajii doono wasaaradda hadajii doonto إن أمرنا نسي ولا هو العدالة سني أمري إن لو ولب شهادتيس كسادة محكمة كفدا هذا كرسي وجرسور نما كفدا هذا كرسي وقدومي محكمة نما وأنا بين هذا طنطنها ثم يدور قبل الجميع فكرة شريعة الله إن سوق شقة دونتان ملكوميدا جيجا كونفر قلبات هاتوي سدحنا قبل إيو تميسيات كده مكونفر قلبات قبل محكمة الله جماعة رجعنا إن سوق شقة دونتان وبلا أنا تاسنا زيبان قادنا كل ولا كبدن من دافط ونهاية مذهبة ومذهبين الدرس سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوفر قلبت سوماليا قلها وزير ذا حليبان ذا أضيال كدتنك أرضي ذا ما انتقلين جبيني جامعة كوفر تدمانتي وايدين سلام. بعد السلام آتي هذا أفرح سنة ما دام أرضي قلين جبيني سمركا أركو فرحة قونيا ينقاضيا دمانتين سلامتين إن شاء الله. بعد السلام وقته آدي أدوكلو وحن مهد بلارن حصول جايدينينا هدي لها جامعتكم فرق البيت إيبار كذا وبور قدومية جامعة بربصورة دل يتبت جوغان دمانتين شغفي عن آيات قبطين وانيدن بوادينينا شقدا أمدوا إنسان تنانغا أوهن واسكوميت إن شاء الله تعالى هدي لها موحنيدن بلن قاضية نوكو الله مقع وزارة وعبرشده دولة goboleedka koonfur galbeed wax Allah wixii wasaaradda ugu baahataan in la fududeyn doono sida hadda idin fududeyn insha Allah taala waxa kale idin balan qaadaya dhammaan ardayda maanta qalin bedelatay facultiyada kala duwan ee ka barteen jaamacadda
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha liistigooda inaan gey doona haddii ilaahay idmo sidii loo helo waxbarasho sidii loo helo waxay soo barteen inay xirfadooda ku shaqaystaan insha allahu tacaala maadaama waqtigu uu kulul yahay waxaan si toos ah ugu rajinayaa mikrofoonka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed insha allahu tacaala aad iyo aadan u mahadsantihiin wax badanaa jira laakiin idan ku dhig الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم وزيرada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka hormuudka jaamacadda iyo macallimiinta ardayda qalin jabinayso iyo ardayda kale walaalahooda ah oo ardayda qalin jabinaysa soo raacday waalidiinta kooxda fanka ee bayaqow ururada bulshada gabdhaha iyo dhalinyarada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii maanta waa maalin weyn oo dadka reer koonfur galbeed maalin u weyn ah annagana ay sharaf noo tahay inaan goobjoog ka ahaano arday tiradooda ay gaarayso 103 arday oo qalin jabinaysa ama qalin bedelanaysa qalin jabinta iyo qalin bedelashada waa isku micno laakiin laba xigmad oo laba micno kala duwan ay leedahay sida uu sheegay professor Enow dadkii hore waxay dhihi jireen qalin jabin waxay ahayd waxbarashada yareyn markii wax la barto meel oo limid ah ay lahayd oo haddii la gaaro la iska joogsanayo laakiin hadda waxbarashadii waa sii weynaatay waa la bartay ma joogsanayso marka ardayga markuu uu dhammeeyo qur-aanka oo uu 114 dhameeyo waxa la dhihi jiray waa qalin jabinayaa bas waa qalin daba ma qaadayo waa baxay waa qalinkii waa la jabiyey waxbarashada ma jirto laakiin tan hadda qalin bedelashada waxbarashadii hore oo aad wax baranaysay yaad ka gudubtay qalinkii hore dhigtay mid kale oo cusub oo hor leh oo fireesha qaadatay waxbarasho hor leh hadda ku bilaabatay waa marka waxaan qaadanaynaa labadaba waa qaadanaynaa laakiin waxaan u qaadanaynaa qalin bedelashada maadaama aysan waxbarashada dhamaanin oo hore u sii soconayso runtii sidaan hore u sheegay waxaa muhiim ah oo aan maanta inta isugu nimid oo intaanoo mas-uuliyiina iyo madaxa iyo madaxweynihii koonfur galbeed iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo ururadii bulshada iyo odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiintii iyo dadkii reer koonfur galbeed oo dhan intii maqashay ay u yimaadeen waxay tahay muhiimadda maanta inaan la qaybsanno farxadda ardaydan qalin bedelatay oo ka qalin bedelatay jaamacadda koonfurta Soomaaliya oo 103 arday ah inaan dareenka anaga tusno oo muujino inaan kula faraxsanahay inaan ognahay inaan maxay ahayd farxadda la qaybsano waa muhiimadda ugu badan oo inta isugu nimid waxaan kaloo dhiirigelinaynaa oo wax weyn noo ah oo sharaf noo ah in waxbarashada aan dhiirigelino nin kastoo arday ah oo reer koonfur galbeeda oo wax baranaya aan waxbarashada ku dhiirigelin saa la socotaan waxa ugu weyn oo muhiimadda ah waxa weeye waxbarasho haddaysan jirin ma laga baxaayo jahliga ma laga baxaayo faqriga ma laga baxaayo gumaysiga ma laga baxaayo dulliga ma laga baxaayo indhala-aanta iyo maxay ahayd dabkudhicidda lagu jira maanta lagama baxaayo waxay u baahan tahay wax kasta oo la qabto waxaa hormuud u ah waxbarashada nimaanan waxba aqoonin waxba ma qaban karo maanta shaqo la qabto shaqada ugu liidato saa la socotaan waxay u baahan tahay aqoon iyo waxbarasho nimaanan waxba baraninna dalkana wax ma taraayo dadkana wax ma taraayo diintana waxba ma taraayo asagana waxba isma taraayo marka waxay tahay nin kasta sida aan horay u aragnay oo aynoo aan ku aragnay maamo muslimo waa bogaadinayaa maamo muslimo maamo sharaf le waaye waxayna tusaysaa
inaysan waxbarashada da'na lahayn waqtina aysan lahayn ay leedahay go'aan inaad go'aansatid oo aad qaadatid inaad waxbaratid adiga kuma xirna marka waqtiga aan waxbaranayo waa la soo dhaafay iyo hadda maxay ahayd wax ii dhiman male iyo caruur baan yeeshay iyo midna maaha waxbarashada waqti kasta 80 sano haddaad jirto waxbaa baranaysaa ama qur-aan baro ama maadi baro waxbarashada waa muhiim waqtigaada waqti ka mida inaad waxbarashada siiso wax aad iyo aad u fiican waaye marka ugu horeyso waxaan leeyahay ardaydii 103 arday ahaa oo soo qalin jebisay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaad dareemi kartaan sida aad priority-ga noogu tihiin waxbarashadiina aan ugu faraxsannahay iyo qalinjebintiina ka qaybgalka aan ka soo qaybgalnay xafladiina ayaa ka dareemi kartaan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo ardayda iyo macallimiintii iyo waalidiintii iyo doorkii jaamacadda iyo guddoomiyihii jaamacadda iyo si goona inaan inta uga mahadceliyo professor Eno oo waqtigiisa soo geliyey oo u soo baxay inuu dalkiisa iyo dadkiisa aqoontiisa uu ku soo celiyo asagana aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo professorada hadda soo socdo jaamacaddan aasaasay oo bilaabay iyo kuwa hadda noo soo socdo ayagana aad ay u mahadsan yihiin ninka hadduu wax barto waxaa la rabaa waxbarashadiisa inay laba qaybood noqoto inuu dalkii iyo dadkii uu wax u bartay uu uga faa'iideeyo wixii uu bartay uu geliyo dalkii inuu waxbarashadii sii wado oo ay socoto oo aysan ka joogsanin ilaa iyo meeshii uu gaarsiin karo uu gaarsiiyo annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed dadka waxay leeyihiin maamul goboleedka koonfur galbeed maamul goboleedka koonfur galbeed ma dihin maamul waa ka guurnay dowlad goboleedka koonfur galbeedaan nahay afka hala bara dowlad goboleedka koonfur galbeed annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan dhiirigelinaynaa oon soo dhoweynaynaa bahda waxbarashada iyo in la kor loo qaado waxbarashada lana tayeeyo waxbarashada koonfur galbeed insha allahu sida aan hore u ballan qaadnayna waxaan samayn doonaa inaan qayb ka noqono oo aan bilowno qoristii alifmaayiga oo aan rabno hadduu ilaahay yidhaaho 2 bil kadib ilaa iyo abriil ama juun ama juulaay midkood inaan furno oo la bilaabo dhigistii alifmaayiga ayadana qaybta ugu weyniyay ka mid tahay waxaa kaloo mas-uuliyaddeedana saaran in ardayda dadka reer koonfur galbeed runtii waxaa jiro daruufo iska tiro badan inaan hergelinno oon dhaqan gelinno iskoollo ay dowladda leedahay oo lacag la-aana oo ardayda koonfur galbeed oo aanan awoodin iskoollada brivatka inay tagaan ay tagayaan wax ku baranayaan aan suurtagelinaynaa insha allahu hadduu ilaahay yidhaah sanadkan aad iyo aad aa u mahadsantihiin runtii sharaf weynay ahayd maanta dadka reer koonfur galbeedna u soo hoyatay jaamacadda koonfurta soomaaliyana waxaan leeyahay hambalyo bilowgii aad bilowdeen waa ogtihiin waxbarashada soomaaliya marxaladdii ay gaartay iyo meeshii laga soo bilaabay markii uu burburay kacaankii iyo dowladdii jirtay adeegyadii bulshada oo dhan ay gacanta ka baxeen waxaa si gooni ah gacanta ugu hayay dad waxbartay dad ganacsataa dad muwaadiniina dad wadaniina oo iyaga isxilqaamay oo si gooni ah isu xilqaamay oo ay ka mid yihiin dadkii abuuray waxbarashada oo aqoon-yahanada ahaa brofesorada lahaa oo iskoolladii brivatka ahaa sii haayay gacanta ku haayay intii laga helayo dowlad dhammaystirto baahida waxbarashada marka ma jirin wax vacuuma oo waxbarashada ku dhacday sideedii baa wax loo baranayay inkastoo mushkilado iyo colaado iyo abaare iyo qax iyo dhibaato ay jireen laakiin meel kastuu qofka soomaaliga uu joogay wuxuu awoodi karay qofkii awoodo inuu wax barto taas dowladihii ma ahan waxa suurtageliyey waxay ahayd dadka aqoon-yahanada ah oo ay ugu horeeyaan aqoon-yahanadii bilaabay jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo iskoollada brivatka dhisay aad iyo aaday u mahadsan yihiin maanta waxay soo gaareen meel waxbarashada lagu faani karo oo ay maraysa in la keeno dowladda soomaaliya manhajkii ay keento waxbarashadii ay si fiican loo qaramayn doono aan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho jaamacaddii ummadda inaan inta ka furno iskoolladii hadda idiin sheegay aan furno kuliyado kale oo waxbarasho aan furno oo ay kow ka tahay kuliyadda badda
beeraha xoolaha inaan furno oo ay dowladda gacanta ku hayso insha allahu oo marka ugu horeysa bishaan hadda ugu horeysa aan dhagax dhigi doono marka dadkaas ayaga ah dad la iloobi kara ma aha sidaasoo kale adeegyadii kale oo bulshada oo caafimaadka ay ka mid tahay dad baa is-xilqaamay oo furay isbitaallo private ah oo kaabayay kan dowladda abaalmarin bay leeyihiin dad baa biyaha gacanta ku hayay dad baa energy korontada gacanta ku hayay nin walba waxbuu gacanta ku hayay marka nin walba oo mas-uula oo qayb ka ahaa soo celinta iyo dib u soo kabashada waxbarashada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed abaalmarin buu leeyahay maalin walbana sida hadda aan u sheegayno ayaa loo sheegi doonaa insha allahu waxa uu yahay iyo waxa uu soo qabtay wax taariikhda qoray noqon doontaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin guddigii iyo xafladdan soo qabanqaabiyey iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya sidaasoo kale aad ay u mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kasoo qayb gashayna waa mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu